وقصة طفيل بن عمر الدوسي. saxaabigaasi قاسي اللي رنجري طفيل بن عمر الدوسي قبيلة ديسة فضي وهاية من قبيايا هاي وحكمة بدن أيا إسكسو عمرتي دبيتنا وحو مكا كسو بيقمي وقتي سياج إعلامي وكتشرو عنقبطين أنا لاحظو حوقن وحق ميديا هي ستة النبي محمد عليه الصلاة والسلام أي كوغوليستين نمانكي قريشات إن أي دادك كدا دعيان إنو نينا مسيح الرولا ما خطري وشوغو ولو باهي قفكو إنانو هذا الكمقلين ما هاي إنانو راعين وإنان عدكي سكسو قارين طفيل بن العمر الدوسي oo nin weyna oo odaya oo reer u talin jiray oo gabayaaya oo la yaqaana wuxuu leeyahay warkii sida ay ugu akhrinayeen waxay gaadhsiiyeen inuu dhagaha fura soo gashado codbi intuu goostay inuu labada dhagood fureeyo uu isleeyahay bilaaba iska soo horbaxdaan yaad codkiisa maqli inuu u tagayo ama uu socdo ama caynkaas waa hadiiba coincidence si uun غير caadi ah isugu soo horbaxdaan yeydan codkiinu isku soo iyo codkiisa aad maqlin xulay markii aan meeshii ma haddana wuxuu baan rumaystay war nin weyn oo caqli la baatay maxaa furtan dhagaha ka galiyay nin weyn oo waxa xun iyo waxa san kala garanaya nin weyn oo gabayga iyo kahanada iyo warka dadka kala saari karaya maxaa dhaga ku fureeyay furtan iska tuuray buu yiri dabeetana intaan u tagay baan ku yiri bal waxaad adigu hayso dadka u sheegaysa ii sheeg nabigu calayhi salaatu wasalaam tawxiidkii buu soo bandhigay wuu islaamay bimujarad inuu islaamay oo ah inuu fahmo islaamnimada iyo waxay xambaarsantahay oo ah inuu ashahaato ayuu wuxuu qaatay go'aanka mas'uuliyaddu saarantay isaguna maanta laga bilaabay inuu diintan dadka ugu yeedho cilmigu bartay waa intaa yar uu nabi maxamed la joogay calayhi salaatu wasalaam dabeetana wuxuu nabiga ka codsaday ama ka warsadayba in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu alla u bariyo tolkii buu ku noqonayaa ayay diinta tolkii aqbalaan طفيل بن عمر الدوسي dib uu laabtay tolkii buu u tegay in la diidayo qura isagoo cabanayo nabiga ku soo noqday calayhi salaatu wasalaam dabeetana nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo reer dows gaalnimadii waa ku madax adeygeen iyo ay wadeen imaqli waaye ilaahay u bari in ilaahay bale ku soo dejiyo habaar dadka diiday inay wax islaam dhageystaan habaar xadiiska bukhaari siduu sheegaya saxiixinka ku yaala bukhaari iyo muslim nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi allahumma hdi dawsan waati bihim halkii laga sugayay inuu habaaro nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ilaahu reer dows oo hanuuni iyagoo muslimana ay yimaadaan waa u duceeyay nabigu calayhi salaatu wasalaam waa ku noqday isagoo weli dareenkii qaba oo dacwadiisii wada culamada taariikh waxay yidhaahdaan 78 qoys isagoo wata ayuu markii dambe nabiga calayhi salaatu wasalaam u yimi oo soo wada islaamay raggu wato yaa ka mid ah diinta alla inagu anfacayba kuwiina soo gaadhsiiyey abaa hurayra soo ma maqashaan abaa hurayra waa min qabiilati daws waa dawsi abaa ka mid ah raggu keensaday طفيل بن عمر الدوسي dadku diinta gaadhsiiyey bimujarad inuu nabiga calayhi salaatu wasalaam rumeeyey ayuu wuxuu xambaaray hamiga ah inuu diintan qaado oo uu cid kalen gaadhsiiyo su-aasha isweydiinta le waxa weyaan inagu imisaynu diinta ku jirray imisaynu se gaadhsiinay intaad muslim ahay intaynu diinta tan haysanay intaynu hamiga qisatu abi dar alghifaariy saxaabigii la odhan jiray laba xadiid oo midna bukhaari iyo muslim ba wada warinayaan ibn cabbaas leeyay midna muslim keligii warinayo oo bacdi nuqaad ikhtilaaf uu ka jiro jamcintoodana aanay fududayn si kastaba ha ahaatee haddaynu intaynu inagu uga dan leenay soo qaadanay inka ku yaala bukhaari iyo muslim ba abi dar alghifaari nin xaq raadinayuu ahaa akhiiran wuxuu yimi magaaladii maka ahayd isagoo fii dannisu isagu u malaynayo sheeganaya inuu yahay rubcu lislaam fii waqti isagu fii xuduudi cilmi bay culamadu ku fasiraan inay ahayd
laakiin dad kaloo iyana sheeganayaa jira waayo waxay ahayd cahdi dadka muslimiinta ahay la cadaadinayo oo wax waliba ay qarsoon yihiin oo dadka u yimaada nebigu calayhi salaatu wasalaam intuu islaamnimada u laqino uu yidhaahdo tolkaas kaga noqo oo markaad maqashaan inaan guulaystay ii kaalaya abidar wuxuu leeyahay waxaan imi anigoo rubculislaama buu leeyahay islaamkaba kii afreeya saddex uniga horraysaba abidar alkhifaariy magaalada maka buu soo galay maka wuxuu soo galay iyadoo iclaamkii aynu sheegaynay taagan yahay qof islaam sheegan karaa aanu jirin oo cidi ku dhawaaqaynin magaaladu iska soo galay isagoo iska aamusan riwaayadka qaarkood waxay sheegayaan cidna wax maan weydiin buu leeyahay dabeetana markii dambaan mid daciifsaday buu yidhi mid dadka ka midaan siri buu yidhi kaasi waa iska daciif waxna ma oge kaa haddaad iska weydiiso tidhaahdo war ninka saabiga ah ninka diinta cusub sheegaya xagguu joogaa malaa waa iska kaaxil qarinaya midaan yaro daciifsaday buu yidhi markii dambe ku yidhi buu yidhi ka saabiga maxamed xagguu joogaa waaba igu qayliyey buu yidhi kiina kor buu qayliyey haadaa saabi haadaa bal kan diintii ka baxay ee caynka waaba lagu soo xumo waa la tumay bimujarad inuu cid weydiiyey xagguga laga helayaa ayaa lagu tumay sidii loo garaacayay buu cabbaas soo gaadhay dabeetana wuxuu ku yidhi war ninkanaa garaacaysaan ma garanaysaan war ninkani waa nin khifaara khifaar waa qabiilooyinkii dhaca iyo bocaan baxay isla markaasi waa nin qabiilkiisa ay yaalliin waddada ay qurayshi safaradooda mariyaan safarka shaam marka lagu socdo waddada la maro qabiilkiisa degan quraysh mantaqii ay fahmaysay buu cabbaas kula hadloo ah hadda kamaydan maarmin buu leeyahy shaam inaa u safartaan ninkaa tumaysaana waa nin bani khifaar ah markaasaa layga foqay buu yidhi oo gacanta layga qaaday riwaayadka qaarkood waxay sheegayaan markaa gaar ahaanta saxiixaynka waxay sheegaysaa meesha isagoo iska fadhiya inuu soo maray cali ibnu abi aalib oo nin yari uu arkay ninkan qariibkaee meesha iska fadhiya ee iska qariibnimadu ka muuqato markaas ku yidhi mala maad inakeen waa iska dabagalay maana wada hadal buu yidhi gurigii buu geeyey habeenkii buu marti sooray subaxii buu alaabtiisi iyo wixii qarbadkii yaraaya intii uu biyaha ku sitiyey wixiisii buu iskala soo noqday abidarmaga wuxuu ku soo noqday makadiisii beytkii meeshii anigkii dambu haddana cali soo maray ninkii oo war weli miyaad helin buu yidhi ciddii aad daydayaysay inakeen waa kaxeeyey habeenkii labaadna waa casuumay waa soo noqday habeen saddexaadkiiba haddana ninkii arko cidlada iska fadhiya calaa haddana casuumay markii dambe wuxuu ku yidhi miyaad ciddaad u helisiyo waxba toona helinoo waxaan rabo aan ku weydiinaya ii ballanqaad buu yidhi inaad qarinayso waa kuu qarinayaa buu yidhi waxaan doonayaa buu yidhi ninka diinta cusub la yimi iyo caynkaasiya soo dabagal buu yidhi halkaan ku socdo weeyaane waxaan ka shakiya haddaad arka buu ku yidhi riwaayadka qaarkood waxay leeyiin wuxuu yidhi sidii nin biyo qubayaan iska dhigayaa markaa faham meeshu waa minaysantahay isku imanin riwaayadka qaarkoodna wuxuu odhanayaa kabahaan hagaajisanaya haddaad aragto anigoo kabahayga tumtumayo hagaajinaya waa ma hagaagsane saa ogow sidii baan ku dabagalay buu yidhi waa laba nin oo isdaba socda oo ura wada socda oo qarsoodigu uu gaadhsiisan yahay inaanu sheegan karin meeshay ku wada socdaan kadibna astaantii iyo waxbuu tusay sidii buu ugu yimi nebigu calayhi salaatu wasalaam su-aalihii waday weydiiyey xadiidka waa soo koobaynaa maxalushaahidkaynu soconnaa maxalushaahidka waxa weeyaan wuu islaamay markuu islaamay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu u tilmaamay inuu tolkii ku noqdo marka uu maqlo inuu guulaystay unana u yimaadaan waayo nima qariiba oo aan u dhalan magaalada oo caynkana dacwadda culaysunbuu kuyo cidima ilaalin karayso wuxuu uhi waan noqonayaa laakiin wuxuu dareensan yahay dacwaddan mas-uuliyaddeeda inuu la asrakhanna biha waa ku dhawaaqi doonaa buu yidhi quraysh dhexdeedaan kaga sii dhawaaqi doonaa dib buu soo laabtay dabeetana intuu maka is dhex taago ashhadu an laa meeshii guriga nebiga lagu socdo la qarinayay ayuu wuxuu isla dhex taagay inuu ashahaada kala dabeetana waa lagu boobay dagaalkii cabbaas ba haddana ku soo baxay waa ninkan aad tumaysa waa nin reer khafaari miyaydan garan waka waa laga tegay tegi maayo buu yidhi la asrakhanna biha waa ku dhawaaqaya maalin saddexaad dib oo haddana kaga dhex dhawaaqay sidii oo kalea loo tumo haddana cabbaaskii baa loo bixiyo uu ka tegay yacni bimujarad inuu islaamay
ayuu wuxuu dareemayaa dacwadan in mas-uuliyadi ka saarantay walow lagu dilaya ama naftiisa dhibi ka soo gaadhayso ama mushkilada ka soo gaadhayso ay rakhiis la tahay wuxuu arkayaa ammaanatun calaa caatiqihi inay tahay inuu dadkan kelimatu tawxiid ugu yeedho mahma kaanat iduruuf ama hala dila ama hala daayo ama wixii la doona hala sameeye intuu dacwo gaadhsiin kara ama diin gaadhsiin kara inuu gaadhsiiyo waxay ahayd baynu leenahay bimujarad inuu qofku jundi muslima noqdo dareenkaa inuu islaamay baa wuxuu gaadhsiinaya baaro diinta tan inuu dadka u sheego haddaynu qiso saddexaad saxiixu muslimka ku taalla soo qaadano damaad alasdi saxaabigaasi war badan baa soo gaadho sheegaya iclaamkii dee meesha lagu haystay ee dadka la khuuqiyey nebi maxamed inuu nin waalan yahay oo jimaniya wuxuun galeen ama balaayo kaluun haleeshay oo qof derderan oo wuxuu yaro dhiman yihiin inuu yahay waxaan u imi buu yidhi kollayba ma ka gaadhaye bal ninkaa intaad raadiso waa intaasoo ilaahay gacantaada ku caafimaad yahay waxbuu tuftufi jiray aad bal waxoogaa ku akhridid qoladii fii zaman aljaahiliya jibankan iyo waxaan ilaa weligeedba waxbaa lagu tufi jiray mid saxaya mid qaladaba kiniisaddaa ku tufto muslimkaa ku tufo qaar kalea ku tufo waa loo fooxiyaa waxaan sidhi buu yidhi bal waa intaasoo ilaahay gacantaada ku caafimaad yahay aad waxoogaa ku waa soo raadiceeyo waanu imi buu yidhi waxaan ku idhi buu yidhi aniyo waxaan maqlay in xanuun ku hayo dee waxaan rabaa inaan waxoogaa kugu tufee maxay kula tahy waa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iclaamku markuu wax buunbuuniyo siduu bini aadamka u bedelo ninkii dadba ugu caqli badnaa ilaahayba basharka ka dhex doortay rasuul iyo nebi ahaa ummaddan dhan loo soo diray ayaa iclaamku dadka wuxuu ka dhaadhicinaya inuu nin waalan yahay inuu nin waalan yaho waxu dhiman yihiin kadib markaanu imi buu yidhi waxaan idhi buu yidhi waxaan maqlay in dee xanuunku soo gaadhay waxaan rabaa inaan waxoogaa kugu tufo nebigu calayhi salaatu wasalaam khudbat alxaaj ayuu akhriyey baa la yidhahdaa ina alxamda lilahi naxmadu wanastaciinu khudbadaasuu akhriyey man yahdi illaahu falaa haadiya lah falaa mudila lah waman yudlilu falaa haadiya khudbadaasuu nebigu akhriyay calayhi salaam biriwaayaatiha almukhtalifa axaadiista qaarkood xamdale iyo intaas axaadiista qaarkood waa ka yaro dheerayaan naska saxiixu muslim uu ka gaaban yahay ama dhammee ama gaabe adigu saa doontaba bal nusuusta isugu duduwo khudbat alxaaj ayuu nebigu ku akhriyay calayhi salaatu wasalaam dabeetana wuxuu ku yidhi acidhaa calaya iigu celi markaasuu ugu celiyey nebigu calayhi salaatu wasalaam markaasuu ku yidhi acidhaa calaya iigu celi mar saddexaad buu ugu celiyey wuxuu yidhi anigu gabayaa waan arkay oo sixroolo waan maqlay oo kaahin waan maqlay oo kan waan maqlay warkanaad sheegaysaa intaa midna uma eka dee nin waalan haddaad hadal saddex goor tidhahda ku celi buu ku derderi lahaa marka hore markuu wax kuu sheego nin waalan haddaad tidhaha ku celi wax kaloo haddana akhrii lahaa dee mar labaadka haddaad tidhaha ku celi wax kaluu sheegi lahaa waxaa muuqataa ninkani nin waalan inaan ahayn nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo muuqda waxaanuu ka hadlayaa khudbatulxaaj waa tawxiid iyo xamdale iyo istikfaar iyo tashahud wuxuu ka warramayaa inay tahay mantiqii dacwada islaamigaaba wixii uu dadka ugu yeedhay nebigu calayhi salaatu wasalaam calaa kullin meeshaan u socdaa waxa weeyaan wuu islaama damaamkii rabay inuu wax ku tufo nebiga calayhi salaatu wasalaam wuu islaamay markuu islaamay ayuu wuxuu ku yidhi keen gacanta baycan kula gelaya heshiis baan kugula gelayahay waa islaamkan qaadanaya nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu heshiiska la galay buu wuxuu ku yidhi wa calaa qawmik keligaa ma rabo dalkaana heshiis igula gal waa ninka hadda islaamay ayaa laga rabaa dacwaddaa inuu xambaaro oo qabiilkiisii intuu u tago inuu isagu diin gaadhsiiyo ninkaa hadda islaamay ayaa la rabaa inuu xambaaro diinta tana uu gaadhsiiyo tolkii oo uu nebigu rabaa inuu heshiis hadda kula galo calayhi salaatu wasalaam markaasu wuxuu yidhi wa calaa qawmi naftayda iyo tolkayba labadaba waa kugula gelaya tolkiina wuu gaadhsiiyey diintii يعني waxay ahayd dacwadda islaamigu fii cahdi الصaxaaba oo fii jiili muslimiintiiyo koowaad wax la mida qariinu ila alislaam qofku inuu islaamnimada qaatay oo uu muslim noqday ayaa waxay ku fillayd inuu daaci yahay inuu diinta soo galay ayaa waxay ku fillayd inuu daaciyey kuwa aynan arkayninna qur-aankaa saasoo kale inooga sheegay yani saxaabadii la arkayay bidhaantooda la yaqaanay
iyagaa ka warramay axaadiistaa soo aroorisay nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam jin iyo insiba waa loo soo diray xataa jinkii rumeeyey dariiqadan buu isna maray jinku inay dariiqadan mareen iyaga axaadiis saxaaba inagu soo warisay ma jirto laakiin rabu samaawaati waalardi baa ka warramay iyana ka warramaya inay baabkan u wadeen saa daraaddeed baa ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahy waid sarafnaa ilayka nafaran min aljinni yastamicuuna alqur'aan falama xadaruuhu qaluu ansituu falama qudiya wallow ilaa qowmihim mundiriin qaluu ya qowmana ina samicna kitaaba unzila min bacdi muusa musadiqa lima bayna yadayhi yahdi ila alxaq waila طariiqi mustaqiim ya qowmana ajiibuu daaciya allahi waaaminuu bih yagfir lakum min dunuubikum wayujirkum min cadaabin aliim waman laa yujib daaciya allah aayaadkaasi fii suurati alaxqaaf gabagabadeeda ku jira rabbi subxaana wa tacaala wuxuu leeyay waid sarafnaa ilayka nafara min waxaad xustaa nebi maxamed oo dadka uga warantaa markaanu xaggaaga u soo weecinnay koox jinka ka mida oo ay ku dhegaysteen baa ilaahay leeyo qur-aanka ay dhegaysteen markii ay qur-aanka maqleenna war bal aamusa bay idhaahdeen aamusa falamaa xadaruuhu qaaluu ansituu fiican u fahamna warkuu sheegaye markay aamuseenay dhegaysteen qur-aankiina falamaa qudiya wallow ilaa qowmihim mundiriin baa ilaha yidhi nebi maxamed markuu qur-aanka dhammeeyey iyana ducaad bay ahaayeen waxay bilaabeen inay tolkood u yeedhaan baa la yidhi subxaana wa tacaala yani qur-aanku wuxuu inoo tilmaamayaa bimujarad inay qur-aan dhegaysteen oo islaameen oo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam rumeeyeen inay dareemeen mas-uuliyadda in dacwadan iyagana saaran tahay inay xambaaraan markaaba oo cidda ka dambaysa cilmi intee laga bay barteen waxaa la sheeguun inay aamusays yidhahdeen oo qur-aan dhegaysteen intaasay barteen tii qur-aankii uu nebigu akhrinaya calayhi salaatu wasalaam ayay barteen kadibna way laabteen waxay la laabteen wallow ilaa qowmihim mundiriin qaluu ya qowmana ina samicna kitaaba unzila min bacdi muusa musadiqa lima bayna yadayhi yahdi ila alxaqi wa ilaa طariiqi mustaqiim kayow bay yidhahdeen waxaanu soo maqalnay kitaab la soo dejiyey muuse gadaashi oo wixii muuse uu wadayna rumaynaya xaqana dadka ku hanuuninaya iyo jidka toosan yaa qowmana ajiibuu daaciya allah tolkayow maqla ilaahay subxaana wa tacaala kan diintiisa dadka ugu yeedhaya wa aaminuu bihi yakfir lakum allana rumeeya subxaana wa tacaala iyo rasuulkiisaba ilaahay baa dembigiina dhaaf iyo cadaabka idinka dhow yacni waxaan u daliishanaynaa un inaan fahamno haddaynu insigii saxaabada a fahamnay saxaabadii jinka ahaydna ee nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam diinta ka dhegaysatayna inay mas-uuliyaddaa xambaareen bimujarad inay qur-aanka maqleen bal aan eegna siiradii ambiyada qur-aanka ilaahay kaga warramayo iyo kuwii raacay ee nebiyada la socday nebi nuux baa ilaahay wuxuu inooga warramaya barnaamijkiisii dacawiga ahaa iyo siduu dadka ugu yeedhayay nebi nuux ilaahay wuxuu ka tilmaamaya inuu yidhi inii dacawtu qawmii laylan wa nahaara ilaahayow tolkay ama dadkayga waxaan u yeedhay maalin iyo habeenba shaqadatan ama brogramkaygu wuxuu ahaa wakhtiga la qabanayaa habeen iyo maalinba wakhti aan dacwo ka fadhiistay ma jirin buu tilmaamaya nebiga caynkaa u dhawaaqaya maxay jawaabtu ahayd ay ula yimaadeen فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا إلهو yeedhmadaydiina firdhashun bay usii kordhisay buu leeyay mar kastoo aan ugu yeedho diinta ilaahay iyo ilaahay dembi dhaaf inay weydiistaanba dhagahabay furaystaan oo farahay dhegta geliyaan oo ma rabaan inay imaqlaan oo iska kay duuduubaan waa isweyneeyaan oo kibraanoo yacni dheglay mar dhaadhiciya buu leeyahy qofka bini aadamkaa inta badan hadduu la kulmo dhaga adayga intan leeg waxaad mooddaa inuu iska caajiso ama is idhaahdo dee adigu xujadii ku ogtay waa kuwa kaa dhaga adayga iyagay xilkoodatay laakiin waxaa ilaahay qur-aanka inoogu tilmaamaya nebi nuux in aanu intaa ku joogin inuu asaaliibtana u gagadiyey wakhtigoo dhan ma ku isticmaalay haddana wuxuu is yidhi malaa usluubkan hadduu socon waayey dis way hadday kugu geli weyday other way tilmaam ama ariiq kale eeg qaab kaloo aad dadka diinta ugu sheegto uma inii dacawtuhum jihaara uma inii aclantu lahum waasrartu lahum israara nebi nuux wuxuu leeya ilaahayow
kor baan ugu yeedhay oo hoos baan ugu yeedhay waa la faqay waa la shiray waa u sheegay kor baan calan ugu sheegay si wal oo la sameeyaba asaaliib kasta oo wax loogu yeedhi karo waan isticmaalay waxaana qur-aanku inoo tilmaamayaa inuu yeedhayay 1000 caamin ilaa 50 sana 1000 sannadood oo laga jaro 950 sannadood inuu dacwadaasi waday qur-aanku wuxuu inooga warramayaa nebi nuux markaa barnaamijkiisa dacwad habeen iyo maalinba inuu ahaa usluubku isticmaalayana inay ahayd wax kastoo possible ah waxaa qur-aanku kaloo ka warramay maalan ambiyadu inaanay fursadnaba dacwadooda dhaafaynin aanu qofku ahayn markaan anigu jaaniska leeyay ama markaan wakhtiga fiican haysto ama markaan badhaadhaysanay ama markaan caynkan ahay baan diinta sheegaya ma aha ilaahay nebi yuusuf uu ka warramaya waxaa la yidhi wadakhala macahu sijna fatayaan laba wiil baa la galay xabsiga oo waxay ku yidhaahdeen qaala axaduhumaa inii araanii acsiru khamra midba wuxuu yidhi anigu waxaan is arkay yacni waxaan ku riyooday anigoo ama se tuujinaya khamri anigoo casirayo oo cinab ka tuujinayo samaynayaan ku riyooday kii kalena wuxuu yidhi waqaala alaakharu inii araanii axmilu fawqa ra'si khubsa anna waxaan ku riyooday oo arkay anigoo dushayda kimis ama roodhi ama laxoox waxaad doontaba dhaho anigoo raashinkaa sida oo ta'kulu tayr oo ay shimbiruhu ka dul cunayaan baan ku riyooday nabi'na bitawiilih inaa naraaka min almuxsiniin bal nooga waran fasirkeeda noo sheeg waxaanu kaloo ku arkaynaa inaad nin ixsaan badan tahay daacigu walow kaafirna ha noqdee waa nin muxsin oo cidda dad kasta u samafala waayo waxaynu arkaynaa nebi yuusuf oo maxaabiistu samafalay waxaynu arkaynaa nebi yuusuf oo boqorkii soo xidhay intuu riyooday cid riyada u fasirta waaye aan odhanin waa nagala tagorado adiga xabsiga nugu cid ku fasirta doondoone isagoo xabsiga ku jira inta la daba socdo laleeyahay noo fasir riyada tan boqorkii baa u baahane oo u arkaya inuu bulsho badbaadiyo oo muxuu ku badbaadinayaa brogram iqtisaadiya inuu dego khito iqtisaadiyo 15 sannadood ee soo socda 7 sannadood oo abaari inay ku dhex jiraan bulshadii iyo waddankaasi siday uga badbaadi lahaayeen abaarta waa bulshiyo waddan ayaa ah waa bulshiyo waddan gaalo ah ma aha dad muslimiina khitadan umu degayn dad gaaleed buu badbaadinayay waxay tilmaamaysaa ninka daacigii inuu muxsin yahay walidaalik ayaa waxay dhaheen nebi yuusuf oo waxaanu arkaynaa inaad nin muxsin oo ixsaan badan tahay ee noo sheeg fursaddaasu ka faa'iidaystay muu bilaabin inuu fasirkii sheego ee wuxuu bilaabay kow horta inuu xasiliyo oo qalbigooda xasiliyo ah halkii fasirka aad ka helaysaan waa joogtaan horta ma idan khaldamine meeshii wax laydinku sheegi lahaa waa timaadeen qaala laa ya'tikuma طacaam turzaqaani ilaa naba'tukuma bitawiilihi qabla an yaatiyakuma dalikuma mima callamanii rabbi inii taraktu millata qawmin laa yu'minuuna billah wahum bilaakhirati hum kaafiruun waa raashin idiinma imanaya laydinku arsaaqayaa buu leeya ilaa iyo ta'wiilkiisa waan idiin sheegaya intaanu idiin imanin arrimahanina waa arrimihii rabbiga i baray aniguna waxaan ka imi buu leeyay duul aan alla rumaynaynin aakhirina ka gaaloobaya waan ka tegay kuwaa diintooda buu leeyay wuxuu bilaabay markaa dacwa fursaddaa inuu ka faa'iidaysto waاtabactu millata aabaa'i ibraahiima wa isxaaqa wa yacquuba wuxuu leeyahy anigu waxaan ka tirsanay qoys ilaahay diintiisan oo waxaan ku abtirsadaa nebiyo yacquub isxaaq ibraahim ma kaana lanaa nacbud ma noo cuntata buu leeyahay an nushrika billahi shay inaanu ilaahay cidnaba ugu shariig yeelo dad mu'miniin oo caynkaasaanu nahy inkastoo dadka inta badani ka gaalowda warkaa markuu waday ayuu haddana wuxuu bilaabay inuu iyaga la hadlo yaa saaxiibaya sijin war labadan xabsiga u saaxiibka ah hawi dhegaysta buu leeyahy aarbaabun mutafariquuna khayr am illaahu alwaaxid alqahaar am illaah alwaaxid alqahaar war ma rabbiyada tirada badan baa fiican mise ayna caabudaan ilaaha keligaa dacwadiisii buu bilaabay iyagu riyay fasirkeeda doonayeen wuu u sheegay riyada inuu fasirkeedii hayo laakiin jaaniskaa yar buu ka faa'iidaysanayaa ah inuu messajkiisa isna dhiibto
dacwadiisa inuu dhiibto oo uu leeyahay markaasi anigu war ma rabbiyo badan baa fiican in la caabudo mise ilaahay keligii maa tacbuduuna min duunihi illa asmaa'an samaytumuuha antum waabaa'ukum ma antum biha min sultaan wuxuu bilaabay inuu tilmaamo tafniido naqdiyo criticize gareeyo aalihadan ay caabudayaan iyo waxaan ay haystaan iyo waxaan inay wax xaqa ahayn ma waxaa caabudaysaan buu leeyahy wax kale ma caabudaysaan ilaa iyo magacyo una idinku intaa bixiseen ilaahya ka dhigteen oo aan ilaah ahayn waxaan sultaan lahayn wuxuu bilaabay inuu sharxo tawxiidka in alxukmu ila lilah amara an laa tacbuduu ila iyaah dalika addiinu alqayim walakina akthara annaasi laa yaclamuun markuu muxaadaro dhan oo 3 aayadood oo qur-aana ilaahay inoogu tilmaamayo oo tawxiidka ka warramaysa oo meeshii uu u bedelayba madraso tawxiidka lagu sharxo ayuu wuxuu bilaabay intaa kadib inuu warkoodii siiyo oo ah yaa saaxibaya sijn ama axadukumaa fayasqii rabbahu khamra wa ama alaakharu fayuslab markaasuu u bilaabay inuu fasiro maxaan daliilka maxalu shaahidkaynuu socna waa maxay waxa weeyaan qof daacig ah inaan wakti gaara ahayn ee wadiifat alcumri inay dacwadu tahay qofka muslimkii any chance uu helo wakti kasta uu fursad helo in laga rabo inuu daaci noqdo diintiisa dadka gaadhsiiyo xataa hadduu maxbuus yahay oo uu qurbo ku nool yahay oo uu qariib yahay oo la xabsiyo oo la dulmiyo oo la cadaadiyo waxaasoo dhiba uu ku jiro haddana qofka mu'minkii inuu weli haysto saaxa uu diintiisa dadka ka gaadhsiin karo qofkii xorta ahaa markaa maxaad u malaynaysa ama waktiga haystay ilaahi subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu kaga warramayaa nebi yacquub am kuntum shuhada'a id xadara yacquuba almowtu id qaala libaniihi ma tacbuduuna min bacdi acbudu ilaahaka wa ilaaha aabaa'ik ibraahiima waxay leeyihiin yani nebi yacquub baa ilaahay wuxuu ina leeyahy subxaana wa tacaala miyaa xaadirteen oo joogteen ma markhaato ahaydeenoo waa soo xaadirteen markii nebi yacquub geeridu ay ku soo ururtay id xadara yacquuba almowt geeridu markaa u timid nebi yacquub iyadoo geeridu haysato wuu dardaarmayaa laakiin muxuu ka dardaarmayaa dacwa iyo diin buu ka dardaarmaya xoolaha aabbayaal markaan dhinto saydun odhanayo reeraha saydun loo dhaqmayo halkee reerka la waxaa kama dardaarmayo wuxuu ka dardaarmayaa maa tacbuduuna min bacdi waar aniga gadaashay maxaydin caabudi halkaa diintii dhigi doontaan dabeetana waxay leeyihiin markaasi nacbudu ilaahaka wa ilaaha aabaa'ika ibraahiima waismaaciila waisxaaqa ilaahan waaxida wanaxnu lahu muslimuun aabba waxaanu caabudi doonaa alle subxaana wa tacaala allihii waa caabudi jireen aabbayaasha ibraahim nebi ismaaciil nebi isxaaq wax kaloo aanu samaynaynaana ma jirtee isagaanu muslimiin u ahaanaynaa idan waa aakhiru laxda fii xayaatih ayuu nebiga kani wuxuu tijaabinayaa inuu mas-uuliyaddii dareemo ahayd in dacwada tani mas-uuliya ka saaranta inuu dadka gaadhsiiyo uu xaqiijiyo ilmihiisu waxay samayn doonaan isaga geeridiisa dabadeed idan waxaa laynoo tilmaamay nebi habeen iyo maalinba dacwo wada asluub kasta ama qaab kasta oo wax loogu yeedhana ku yeedhaya 950 sannadoodna waday waxaa laynoo tilmaamay nebi xabsi ku jira oo qurbo ku nool waddankiisii waddan aan hayn jooga oo la dulmiyey oo lawcatlgurba iyo xabsi iyo dulmi iyo waxaasoo dhibi haystaan oo haddana jaanis yar markuu helo dacwadiisii wata oo tawxiidka dadka ugu yeedhaya waxaa laynoo tilmaamaya nebi naftu ka sii baxayso oo damaya oo ka dardaarmaya dacwo iyo diintii waxa laga yeelayo waxaa ilaahay subxaana wa tacaala inoo soo diray nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam oo noloshiisa oo dhami dacwad ahayd oo isna xataa markay naftu ka sii baxaysay 5 maalmood ee ugu dambaysay mise xadiis baa laga soo wariya isagoo jiifa oo sakaraada oo xanuunsanaya oo xumadoonaya oo le ilaahay rasuulkiisii xumaddu xoog bay ku haysaa laleeyahy uu leeyahay laba idinka midi siday u xumadoonaysaa baan u xumadoonaya oo laleeyahay waa ajarka badan aad heli doonto sidaa u xumadoonaya ayaa haddana wuxuu ka warramayay war xabaashayda ha ka dhiganina meel a ku cibaadaysa ama ciid ha ka dhiganina wuxuu ka warramayay ahlu kitaabku ambiyadoodii iyo xabaalihii iyo wixii bay ka dhigeen meelaha ilaahay khayrkii lagu caabuday inaan lagu caabudin ama la dhisin ama wuxuu ka warramayay fii aakhiri laxdaat baa la yidhaha nebigu maxaa ka mid ahaa waxyaabihii ugu dambeeyey markuu geeriyoonayay intuu iska fayday marada yuu eegay saxaabadiisiiyo tukanaysa oo abibakar tukinayo salaada ku jira aakhir kalimaad uu kusii warramayay waxayd isagoo dardaarmayoo leh
الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم isagoo dardaarmayoo leh allah allah الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم dadka ugu yeedhaya alle subxaana wa tacaala ugu yeedhaya inay salaada ilaaliyaan ugu yeedhaya inay xaqa dhowraan dadka addoomaha iyo wixii gacantooda ku jira qur-aankaa baa inooga warramaya in ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala mas-uuliyaddan siduu u dareemayo uu ugu warwarayo ilaahay uu kula talinayo inaanu naftiisa halaagin falacallaka baaqicu nafsaka calaa aathaarihim in lam yu'minuu bihada alxadiidi asafa ilaahay baa subxaana wa tacaala looga qalbi qaboojinaya inaanu naftiisa ku halaagin warwar uu warwaraya diintan dara mas-uuliyadda diintan in dadka loogu yeedho waxay saaran tahay qof kasta oo muslima qof kastana waxay u saaran tahay calaa xasabi taaqatihi wa qudratihi qur-aanka ilaahay wuxuu inooga warramayaa cid adiga kaa taag daran oo laakiin mas-uuliyadatan xambaartay ilaahay qur-aanka wuxuu inooga warramayaa shimbiraha ka mid oo mas-uuliyadan xambaaray inuu dacwada diinta gaadhsiiyo o u xidhxidhan qur-aanku wuxuu ka warramayaa shimbir yaroo la ydhaha maxay hudhud soomaaliga waxa la ydhaha guuguule shimbirkan yare guuguula la ydhaha dhoorka yar leh ee meelahaasi jooga guuguule ayaa qur-aanku wuxuu inoogu tilmaamayaa intuu safray oo duulay inuu carriga ilaahay soo indhe-indheeyey oo dabeetana soo arkay duul dawlada oo boqortooyo leh oo wax walba haysta oo nicmaysan oon haddana ilaahay caabudaynin oo ilaahay khayrkii u sujuudaya dabeetana u safray inuu nebi u tago uga warramo duulkan iyo waxa ay samaynayaan si uu nebigu dacwadda u gaadhsiiyo waa shimbir laakiin xambaaraya mas-uuliyadda ah inuu diinta tan u adeego ilaahi subxaana wa tacaala qur-aanka markaa wuxuu kaga warramaya shimbirkaasoo warkii intuu soo ururiyey uu nebiyullaahi sulaymaan ciidankiisii intuu ururiyey uu waayayo uu hanjabayo oo dabeetana uu yidhi waa ciqaabaya haddaanu war saxa keenin ama wax keenin oo intuu soo noqday nebiga hortaagan oo la axadtu bimaa lam tuxit bihi cilma waxaanad koobin baan koobay axadtu bimaa lam tuxit bihi war aanad soo koobin baan soo koobay buu leeyay war khabar baan hayaa khabarku hayaa waa maxay waji'tuka min saba'in binaba'in yaqiin saba baan ka imi buu yidhi dhulka yaman la yidhaahdo ayaan ka soo duulay waa falastiin buu ka duulay yamanna wuu tegey waxna waa indhaindhaynayey yaman baan ka soo duulay buu leeyihi yamanna waxaan uga soo duulay waa maxay waxaan ku soo arkay innii wajadtu imra'atan tamlikuhum wa uutiyat min kulli shay walaha carshun cadiim waxaan soo arkay buu yidhi gabadh dadkaba boqorad oo hanata oo wax walbana la siiyo nicmaysan inuu gabadh boqorada soo arko wax haysata ma hiya almushkila maxay tahay dhibta ka jirta waa tan wajadtuhaa wa qawmuhaa yasjuduuna lishamsi min duuni illaah wazayana lahum ashayطaanu acmaalahum fasadahum can sabiili fahum laa yahtaduun waxaan soo helay buu leeyahay duulkaasi waxaan ku soo ogaaday iyadiyo qoomkeedaba oo cadceedda u sujuudaya ilaahay sukadii subxaana wa tacaala oo shaydaan waxa u qurqurxiyo aan duul hanuunsan ahayn dabeetana khitaab istinkaariya iyo arrintaas siduu u diidan yahay buu nebi sulaymaan u sheegayaa laa yasjuduu lilahi aladii yukhriju alkhab'a fi asamaawaati waalard idan hadduu dareemay hudhud guuguule hadduu dareemay in xil saaran yahay hadduu mushrikiin soo arko iyo cid aan ilaahay kayrkii caabudaysa inuu kuwa wax u sheegi kara uu u tago o yidhahdo kaalaya kuwan waxa loo sheegay xilkaasuu dareemay hudhudku in xil saaran yahay oo uu ka saaran yahay kuwan ilaahay kayrkii caabudaya inuu ka saaran yahay inuu dadka kan tawxiidka gaadhsiiyo inuu calal aqal dawrkiisa guto ah inuu u tago ciddii gaadhsiin lahayd dadka kan tawxiidka ma adigoo ilaahay waxaanu xoog iyo caqli iyo awood iyo raganimo ku siiyo bini aadamka ha dhigay baan dawr ku lahayn inaad diin dad gaadhsiiso shimbir baa dawr lehe adugu xaggaad joogtaa magaalo yaroo 3 rasuul loo soo diray oo haddana nin kale isna xilkaa isa saaroo qaaday waa meel 3 rasuul joogto maaha meel madhan qur-aanka ilaahay wuxuu inoogu tilmaamaya subxaana wa tacaala wadrib lahum mathalan asxaaba alqarya id jaa'aha almursaluun id arsalnaa ilayhim 2 fakadabuuhuma facazazna bثالث faqaaluu inaa ilaykum mursaluun ilahay wuxuu leeyay subxaana wa tacaala dadka waxaad u sheegtaa
وعديت تصالها كان qoladii magaalada deganayd ee rususha ay u timi baa ilaahay yidhi id arsalnaa ilayhim ithnayn waxaad u sheegtaa baa laleeyahy subxaana wa tacaala markaan u soo diray laba culamada badh waxay ku fasiraan inuu nebi ciise uu soo diray laakiin maadaama ay ciise ka socdaan in lagu cabirayo inay yihiin ciisena dee ilaahay buu ku socdaa ay warkay sidaan warkii alla un inuu yahay haddii daahirkeeda wax diidayaa ma jiraan calaa kulli xaal hadduu ciise soo dirayna waa cid muhimmaddan qaadi kartoo loogu talagalay inay qaado labaa la soo diro markaasaa la beeniyey mid saddexaad baa laga daba keenay haddana facazaznaahum bihaalid saddex rasuul magaalo ay joogto oo dadkiina dhagaa furaysteen oo layshayaa ayaa ilaahay qur-aanka wuxuu kaga warramayaa wajaa'a min aqsa almadiinati rajulun yascaa magaalada halka ugu fog nin baa ka yimi degdegaya baa la yidhi ninka kan isagaa rasuul iyo sifaadkaa lama siinin qoladii hore rasuul bay ahayd ama min ha ka yimaadaa nebi ciise ama allaba ha soo diro rasuul bay ahaayeen amaa kan waxaa la yidhi wajaa'a min aqsa almadiinati rajul waa nin la nakireeyey magaalada halka ugu fog nin baa ka yimi baa la yidhi oo degdegsan ninkan degdegayaa muxuu wadaa waxa uu wadaa yaa qawmi ittabicuu almursaliin ittabicuu man laa yasalukum ajran wahum muhtaduun waar tolkayow buu leeyay raaca rususha laydiin soo diray waa raaca kuwa hanuunsan waan wax adduunana idinka doonaynin qofku hadduu labadaas sifaba wada wato inaanu hanuunsan yahay isagu marka hore mar labaadna si wax brifatekiisa ama wax shaksiya ama waxuu isagu doonaya aanay jirin oo uu kaa helayaaba ee ilaahay dartii unuu kuugu yeedhayo dacwadu ilaahay dartii markay tahay bay wax dadka gala tahay walidalik baa rasuul kasta ilaahay wuxuu lahaa iclaanka a qaado sloganka ah maa asalukum calayhi min ajri baa nebi walba la yidhi waxaad ku tidhaha dadka waa anigu waxba idinkama rabo waayo hadday dadku is idhahdaan qofkan danbaa ugu jirta waxaa laga yaabaa inay tuhmaad badan keenaan laakiin haddaad danba ka lahayn dadka kan waxay arkayaan waxaad naseexa inay tahy ini lakum naasixun amiin haddaad tahay idan ilaahay wuxuu inoo tilmaamaya subxaana wa tacaala ninka kani isma odhanin war meesha saddex rasuul baa jooga adiga shaqadaad ku leeday waa maxay tuulada saddex rasuul baa taagan meel saddex rasuul joogto adiga waa maxay shaqadaa lagaa rabaa muu odhanin ilaahay wuxuu tilmaamayaa isagoo saddex rasuul joogaan inuu isna shaqada dhinaciisa ka wado uu leeyahay war hala raaco rusushatan hala raaco rusushatan macnaheedu waxay tilmaamaysaa marka ayuha alikhwa qof kasta oo muslima inuu saaran yahay xil ah inuu diinta dadka gaadhsiiyo inuu saaran yahay xil ah islaamnimada inuu mas-uul ka yahay inuu saaran yahay xil ah inuu dareemo inuu safiir yahay matalaya rasuulkii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam inuu dareemo nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam inuu saxaabadiisa kula balliquu canii walow aaya inuu tilmaamayay ruba muballagin awcaa min saamic la arkee in mid la gaadhsiiyey uu ka weelayn bato kii wax maqlayba waxaa laga yaabaa midaad adigu unu yeedho tidhi war laa ilaha illa allah iska dho ashaado caynkana inay lahayd dadkaba ku anfaco isagu daaciga kama dambaystaaba noqdo waxuu yeedho dhan ajirkooda insha allah adna waad leedahay laakiin adiga ilaahay wuxuu ku haleeshiiyey inaad isagun tawxiidka u laqinto diinta soo gelayso idan qofka muslimka ah hadday dadka muslimiinta ahi maanta bilyuun iyo badhka ama 2 bilyuun ee dhadhowe dunidan kor saarane hadday mas-uuliyadaa dareemi lahaayeen caalamka intaynu kaga soo hoyan lahayn inuu islaamo mas-uuliyadaa jiilu saxaaba ay dareensanaayeenee ah intay islaamaan maanta inay noqonayeen iyagoo ducaada oo tolkood mid iyo 2 iyo 3 baan idin tilmaamay lakiin saxaabada haddaynu ka warranno markuu xataa nebigu madiine tegey saxaabadii hore madiina timiyo dacwadda say u faafiyeen haddaan ka warranno sacad ibnu cubaada markuu isla reer bani cabdillashaal muxuu ku lahaa wax dababa cuni maayo haddaydan islaamin tolkii oo dhammaantuu soo islaamay tolkii oo dhanna wuxuu ka rabaa inay islaamaan haddaynu ka warranno taariikhi saxaaba iyo nin waliba markuu islaamnimada soo galay iyo hamiga kan siduu u xambaaray ama u qaaday dadka kan
hamigaa inay diinta dadka gaadhsiiyaan baa ku weyna abibakar intuu islaamay oo nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo qof u yeedhay oo ugu yeedhay dadka ugu hor yeedhay oo diinta u sheegay oo islaamay ayuu noqday 10 المبشرين 6 ka mida isagaa keenaa la yidhahda aakhiro fii wasni abibakar bay ku biirayaan cabdiraxmaan ibnu cawf cuثmaan ibnu cafaan zubayr ibnu alcawaam طalxa abu cubayda ibnu yani 6 nin oo ka mida baa la yidhaha 10 المبشرين abibakar baa keenay waa qofku hadduu mas-uuliyadda dareemo goormuu keenayaa shalaa diinta loo sheegay qur-aanba wax yar baa ka soo dego markaa salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayey aakhiru saaca ama wakhtiga dambe inay soo bixi doonaan dad subaxii gaalooba oo gelinka dambe islaama ama gelinka dambe islaama oo subaxii gaalooba yacnii saaka mu'minnimu kuwaa baristay laakiin acmaashuu sameeyey baa gaalaysiisay gelinka dambe waa gaal ama saaka gaalnimu kuwaa baristay hadhow buu haddana ashahatay gelinka dambe waa mu'min waxyaabuhu ku sifaynaya kuwa waxaa ka mid ahaa inay diintooda dhaafsanayaan in yar oo adduunyo bidhbidhkeeda xoolo ayaa diinta weydaariyey bini aadamku wuxuu ka mid yahay markaa qadiyadda dhaqaaluhu waxyaabaha ugu tirada badan lee macsida keena ilaahay markaa tusaale wuxuu inoo siiyey gabadh kale oo muslimada waa ummu ismaaciil nebiyullaahi ismaaciil hooyadii oo ah nebiyullaahi ibraahim xaaskiisii waxaa ilaahay qur-aanka ku tilmaamayaa nebi ibraahim oo leh rabbanaa inii askantu min duriyatii biwaadin gayri dii zarc cinda baytika almuxaram rabbanaa liyuqiimuu الصalaata fajcal af'idata min annaasi tahwii ilayhim warzuqhum min aلthamaraati lacallahum yashkuruun nebi ibraahim oo ducadatan akhrinaya qisadatan saxaabigii ibnu cabbaas la yidhaahdaa siduu soo wariyey ee imaamu albukhaari uu ku soo saaray saxiixiisa wuxuu leeyahay ibnu cabbaas baa wuxuu leeyahay maka oo lamadega ah aan cidi joogin ayuu nebi ibraahim soo kaxeeyey haweentiisii haajaro ahayd iyo ilmo yaroo ay dhashay oo ismaaciil ah hooyadaa umusha ah oo nebigaasi wado ayuu wuxuu keenay saxaaraha carbeed meesha imaka maka loo yaqaano oo lamadegaan ah wax adduuna wuxuu u siday qarbad ama sibraar ama saan biyo ku jiraan iyo weel kale oo waxoogaa timiri ku jirto qarbad biyaa iyo qarbad timira labadaa inood buu wax adduunana wataa dabeeto intuu dhigay meeshii ayuu ibraahim iskaga tegey waxaad qiyaastaa hooyo dayacan oo aan odaygeedii la joogin oo la geeyey meel lamadega ah oo aan cidiba deganayn oo cid u dhowo ay og tahay aanay jirin oo meesha la dhigay aanay baadiyo biyatoona oolin oo iyadu wax adduuna haysata hal qarbad oo biyo ah iyo hal qarbad oo timiri ku jirto ama laba shay laba weeloo midna timiri yari ugu jirto midna biyo ugu jirto markay aragtay ibraahim oo iska tegaya bay su'aal weydiisay waxay ku tidhi ibraahimow ayna tadhab watatrukuna xaggaad qabanaysaayoo nagaga tegaysaa bay tidhi markay aragtay ibraahim inu xidhxidho iska tegey ayaa waxay tidhi xaggaad intaadna dhigtay aad nagaga tegaysaa ma waxaad nagaga tegaysaa bay tidhi waadigan ama dooxadatan alladii laysa fiihi aaniisun walaa shay dooxadan lamadegaa ee aan cidiba joogin ma halkaasaad nagaga tegaysaa bay ku tidhi nebi ibraahim lamuu hadal ee uu iska socday kamay hadhinayana way daba socotaa oo ilmihii intay ka timay isagii daba socotaa oo su-aasha ku celcelinaysa mar qura muu soo eegin ee uu iska sii u qadaad jeediyey oo iska sii socday markii dambey su'aala weydiisay allahu amaraka bi haada ibraahimow sidan ma ilaahay baa ku faray bay tidhi intaad halkaana dhigtay inaad iska tagto ma wax alla ku farayba qaala nacam haa buu ku yidhi oo ilaahay baa sida tanna faray
u fiirso gabadhatan sida ilaahay u rumaysnayd siday u rumaysnayd in awood dunida oo dhan ugu weyn isaga uu yahay in wax waliba biyadihi lmulk